dowladda Soomaaliyeed waxay ka tacsiyeynaysaa falkii guracnaa ee ururka argagixisada al-shabaab maanta ay ku beegsadeen xarun dugsi quraan iyo masaajid lagu cibaadaysto iyo xarun bulshada loogu adeegayay xaqiiqdii ficilkaasi waxa uu tusaale u yahay ururka al-shabaab ee argagixisada sida ay uga go'an tahay dabargoynta shacabka Soomaaliyeed maanta waxa ay dumiyeen masaajidkii laguma dukan karo waxa ay weerareen dugsi quraankii barito ardaydii ma aadi karto meel ay diintii Ilaahay ay ka bartaan ayay burburiyeen shacabkii Soomaaliyeed halkii loogu adeegayayna waa ay burburiyeen ficilkaasi al-shabaab waxa uu caddayn u yahay xaasidnimada iyo sida ay ula dagaalamayaan jiritaanka ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeedna waxa ay qaban doontaa ama ay qabatayba sida caadada ahayd in masaajidkii dumay salaada xigta sida loogu dukan lahaa loo dhisi lahaa ayay ka shaqaynaysaa ku hawlan tahay sidoo kale waxay ku hawlan tahay dowladda Soomaaliyeed dhisidda dugsi quraankii ardaydii wax ku gaartayna halkaasi sidii loogu gurman lahaa intii dhaawacantayna hadda dowladda Soomaaliyeed waxa ay geysay isbitaalada inta dhimatayna eheladooda iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waan uga wada tacsiyadeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad xaqiiqdii ficilkaasi mar labaad iyo mar saddexaad ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u caddeeyo shalay haddii ay lahaayeen waxaan u dagaalamaynaa diin ogaada maanta waxay u socdaan waa dil iyo dabargoyn diinta islaamkana sal iyo raad kuma lahan haddana waxaa la joogaa xilligii shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodu ay garbaha isqabsan lahaayeen ogaada maalin walbo nin walba gurigiisa ayaa loogu tagayaa maanta muxuu galabsaday canuga yar ee maskiinka 3 jirka hooyadiis ay dugsi quraanka u soo waday odayga 8 jirka ee masaajidka ku jiray masaajidka lagu dumiyay dugsi quraankana lagu dumiyay muxuu galabsaday kaliya waxa uu galabsaday wax kala ma ahayne diinta islaamka ayaa si sax loo baray waxa ay la dagaalamayaan ay dilayaan waa shacabka Soomaaliyeed iyo diinta islaamka in tashwiiha sumca ay ku sameeyaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda oo garbaha is haysta guriyihiina ayay idinkugu imaan doonaan xitaa haddii aad adduunka ku badbaadaan maalinta yawmal qiyaama yawma yafirru almar'u min aqiihi ayaan xisaabtami doonaa dowladda Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad way ka tacsiyeynaysaa falkaas waxaa la joogaa xilligii aan u midoobi lahayn dabargoynta ururka argagixisada dooxatada al-shabaab waana mahadsantihiin dowladda Soomaaliyeed ilaamaha ammaanka hadda waxa ay ku hawlan yihiin tirakoobka saxda ahaa sida loo heli lahaa dadka halkaasi ku waxyeeloobay halka ay masiibadu ka dhacday waxa ay ahayd dugsi quraan dhan oo dumay iyo masaajid dumay ilaa haddeertaan idinla hadlay ilaamaha ammaanka iyo caafimaadka waxa ay ku hawlan yihiin tirakoob sax ah sida loogu soo saari lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan oo idinkula soo wadaagi doono hadduu Ilaahay yiraahdo